ololu aad buu u socdaa heer wuxuu gaaray xitaa halku dhigada isku khaldama adigii waxa isku halka duulin qoday Cali Ciise Cabdi soo aragta wal horta hadda markii ugu horeysay waxaan arkay saakim yaa la tusay qolada campaign-ka u wada Cali Ciise Cabdi waxay ahayd bal horta inay marka hore fiiriyaan halku dhigada kale oo musharaxiinta marka hadda afar kalmadoo Soomaali ah hadda iyaguna aniga iga daydeen waxba kama qabo adduunka oo dhan waxaan u maleynayaa inay marka kaygi noqonayso mid lagu wada daydo Soomaalida oo dhan marka kamida halin waa iska ogaatay ma anigu run ahaantii markii saaka la tusay waxaan u maleynayaa inayan ayan baarin qoladii wax u sameeynayay inayan marka hore baarin horta war ma la qaatay halku dhigeeda aan ma jiraan mise waa qaadan karaa daahir mira Jibriil dadku inta badan sida hadda wuxuu ka hadlay jaamac ujeeda arintan amniga inay u daayeen amniga wixii kale laakiin dheeraad iska qabteen bal hadda ilaa ay haatan nidaamyada dimuqraasiyeeshanka oo dimuqraadiyadda adiga qorshaha kugu jirta hadii lagu doorto in la sameeyo maxay wax ka bedelayaan si qofku uusan adhowtan la isugu oran shir hala joojiyo hadhow qofka loo erin oday ha ku dooro wax maxaa ajendaha ka sheegay waxa aad cajiib u ah Puntland inay 20 sano ay hadda jirsatay oo ayan jirin sharciga doorashada sharci doorasho Puntland maleed markaas qabsiba sanad walba marka la gaaro 5 sano dhamaato isqabsiba dhaca iyo la isku qabsado gudiga xalinta khilaafaad gudiga la isku qabsado waxyaabo badan oo kale oo aan hore looga fiirsan anu hadaan qorshahaygu waxa weeye sanadka ugu horeeya in la soo afjaro arinta sharciga doorashada Puntland iyo in la abuuro in qofka dadka reer Puntland hal cod iyo hal qof oo ku jiro sharcigaasna la dhameystiro sanadka ugu horeeya ee maamulka in lagu dhameystiro sanadka labaad ee maxaan ku yiraahdaa maamulka hadii aniga iyo lay doorto maxaan ku yiraahdaa dawladdeeda la doorto anu waxaan qabaa in sanadka labaad ay caddahay in dalku uu gaarayo hal qof iyo hal cod oo nidaamkiisina degsan yahay xisbiyadiina meesha loogu talagalay sameeyo aniga waxa ii ah faa'iido dheeraad ah oo maaragtay 2 sano waxaana xogayaha guud ee gudiga doorashooyinka qaranka 7 dal oo Afrikaan iyo dalal kale ah baan tagay oo waxaan u tagay tababar xagga doorashada oo kamid ah dalka Kenya Nigeria South Africa Chad Liberia ay kamid tahay dalalka Ghana ay kamid yihiin oo hadda electionskooda xagga Afrikaanka ay aad u fiican yihiin dalkeena waa laga hirgelin karaa doorasho 20 sano oo aan sharci doorasho jirin oo aan doorasho ka dhicin Puntland hal qod iyo hal qof waxay ku tahay ceeb bay ku tahay Puntland inay dhacdana saas ma mid kale waxaan rabaa inaan ku daro Puntland hadda doorashada hadda socota oo mid xasaasi ah mid lagaba maarmaan isbedel laga yaabo isbedelka loo baahan yahay oo Puntland inuu ka dhaco maanta looga baahan yahay inuu yahay midkii masiiriga ahaa oo ugu muhiimsanaa Puntland intay soo jirtay 20 soo jirto waxaan u dirahayaa baaq xildhibaanada la soo doortay la soo xulay oo maxaan ku leeyahay 66ka inay ka fiirsadaan cid ay dooranayaan daahir si fiican bi siyaasiyiintu u hadlaan markay wax doonayaan waxa aad sheegayso oo dhan inaad hirgelinaysid maxaan kugu aaminaa على سؤال شخص وفي وحلا واحد وديسي ودان تاسع ومهمسن قف عن إنه آمن يهي مركي حر لأوجين أو لتجابين هدورننا قف عن إنه رولو يهي لصوت تجابين هدورننا قف عن معمول أقون أو لحدان معمول كبرنا هيانا هدورننا قف عن دور شكا سو شقين أما صبرننا هدورن قف عن سكوريتيجا نوع الدجال كأن كتشر عن خبرات أولى هنا هدورن 40 سنوات أيان أنو سياسة ده يدجال كيو هالجن كيو واحد كسوتشر وانقيب كاه وحن مركز رباه قفنا إنا اللجوء آمنين وحسن قبنا هي قفنا إنا اللجوء آمنين قفنا إنا اللجوء آمنين ساسا سمينه قف كله إيجو مركز أجوه رئيسه ملاذ هاي وحن هرم وسوقبتي من لجوء جاي أنا جو
madax sare baan ka soo qabtay oo Cabdullaahi Yuusuf aan assistant u ahaa 6 sano Puntland iyo 3 sano oo ah madaxweynaha Soomaaliya hal bugcada iyo hal meela oo aan ka dhistay oo aan Puntland ku leeyahay oo meel kale ku leeyahay banaan kale ku jiray taas waxa cadeynaysa inaan tuugahayn waa daahir mireen una doorayo daimo allo nabad loo gudaa